Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawade dhagayste, waxaan kaa codsanayaa inaad dhagahaada i amaahiso. Waxaan kuu soo gudbin doonaa qiso yar mase sheeko yar oo hadda ka hor dhacday. Nin ayaa wuxuu qabay xaas, labadooduba waxa ay ahaayeen laba qof Ilaahay isku dooray. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, ninka ayaa wuxuu uu lahaa sandaqad mase dukaan sidaad u taqaano oo lagu iibiyo alaabo. Maalin maalmaha ka mid ah, asiga oo ku guda jira noloshiisa nolol maalmeedkiisa oo dukaankiisa dhex fadhiya, ayaa waxaa u timaaday gabar heybad iyo quruxba eebba ku manaystay. Markaa kadib gabadhii waxa ay ka codsatay xaajigii in uu adeeg ka iibiyo. Markii uu adeegii ka iibiyey ayaa waxaa dhacday misana asiga oonan malaysanaynin in uu gacanteedii gabadha sidaa u salaaxo ama ay gacantiisa gaarto. Ka dambo waxaa dhacday isla taa mid la mid ah oo ahayd xaafadiisa mase gurigiisa. Waxaa jirtay oday ayaga rukun u ahaa oo gaari la ah mase oday gaari dameer wata oo ayagu biyaha ay ka arooran jireen mase biyaha u shubi jiray. Maalintii ayaa waxaa dhacday odaygii in uu ciddii biyaha u keeno. Markii uu odaygii biyaha uu ciddii u shubay ayaa waxaa dhacday si lama filaan ah oo xaaska aysan malaysanaynin. Markii uu biyihii u dhammeeyey ayaa waxay damacday in ay siiso xaajiga lacagtiisa oo uu xaq u lahaa. Markii ay lacagtii rabtay inay farta ka saarto ayaa waxaa dhacday si lama filaan ah inuu ninkii naagta gacanta ka qabsado. Markaa ayay xaajiyaddii naxday oo ay yaabtay. Ninkiina sidii ayuu ku sii daayay gacanteeda, lacagtii ayuuna ka qaatay uuna ka tagay. Xaajiyaddii ayadoo fajacsan misana yaaban ayaa waxa ay go'aansatay in ay xaajigeeda weydiiso waxa uu maanta soo sameeyey. Habeenkii markii la gaaray oo uu xaajigii imaaday ayay waxay ku tiri, xaajigaygiiyow, Ilaah baan kugu dhaarshay, maanta maxaad soo samaysay? Markaa buu ku yidhi, maanta waxaa ii timaaday gabar aad iyo aad u qurux badan, mase anigoonan malaysanaynin ayaa gacanteyda waxa ay taabatay ayada gacanteeda. Marka arrintaasi ayaa dhacday xaajiyaddii. Markaa bay ku tiri, aniga ayaa la iiga dhakaa jaray oo ninkii biyoolaha ahaa ee biyaha noo shubi jiray ayuu maanta anigoo lacagta siinayo ayuu gacanteeda qabtay. Marka subxaanallah, waxaan idiin rajaynayaa in aad iska jirtaan dambiyada qaar, haddii kale waa lagaa gudayaa.